وحكست وقت كده قال مكرت ويل كاقول لك عي حتى وقت كده فل علين كرتا لكن شرفت هذه يعرض دقاقية كرام مضى هذا مرك الله صور دكتور كم مدة قال مكرتيت and I know this in everyday dhacdo maalin kasta gabar Soomaali inay ku dhacdo aniga mideeda kale waxa dhiilahay dadkan xumaatada iyo waxa wareejinaya hal cosi aan u dir lahay barada xumaatay iyo gabdhag aadi aan kula dhalan inta wareejin lahay anaka waxa jecelnahay kuwa adiga kula dhashta mis hooyada ina saashadan loo soo saar السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولالكين يابس 24 أونيله ورهيا ذيقا هل كانوا حاكوها هنا إنه عادي ماهن وحواي وفنانة قرن مقعدنا وحالها سافيو تسمو tan iyo shalay inay qabsatay baraha bulshada oo ayada leela warhay waxa rabnaa marka ina ogaano sida uu hadlayso iyo dareenkeeda kadib anaka waxa ka bixin doonaa marka sida aan ugu taqaanin reaction keena bal marka waxa rabnaa ina dhageysano let's go I don't know what to do Somalia I don't know waxaan galabsaday ilaa hada I don't know what to do Somalia I don't know waxaan galabsaday ilaa hada nolosheedii ma garanayo qofaan dhibay waxaan ku hadlo ma garanay hooyanahay ubadkaygi baa daawanaya waxaan ilaa saakay soo garaacay walaal baan leeyahay wiilal baan la dhashay wiilal baan dhalay macnaha la soo dhigo social media laakiin sida u jeedno Safiyo Tusmo waa la soo jabsaday social media-da qaas ahaan waxa u maleynaa aniga inuu yahay Snapchat-ka bal dib ugu ogaani doonaa marka ayadan waxaan ku oran lahaa hal mar waxaad haysid shayga soo raacay alli sayir yaraysiga way dhaamadaayda hal mar ay dhacdo soo daa ma u jeedin haddana waxay dhowsaa qofkii ee message u diraysaa marka qofkii baalka jabsaday badana dadka markay wax jabsadaan waxa lagu yaqaan waxa waaye waa tafaariiq wax u dhiibaya jumla dhan ma dhiibayaan tafaariiq waa wuxuu hal bari isbuuca dambe waa xanuun waa marka ayada marka waxay weydiisanaysaa in hal mar waxa jumla ahaan la soo dhigo oo ayadana xanuunka ka baaboo هذه أنا وإنه مالنت يوم القيامة هذا نصيب لهنا أدون كان أسكو أركينا إلا إيه هو يذا بنكتلها بسم الله وحكست وقت كده قال مكرت ويل كاقول لك عي حتى وقت كده فل علين كرتا لكن شرفت هذه يعرض دقاقية كرام مضى هذا مرك الله صور دكتور كم مدة قال مكرتيت and I know this in everyday dhacdo maalin kasta gabar Soomaali inay ku dhacdo laakiin adduunyada waxa ugu daran markaad qof bini aadan aroor kasta intaad soo kacdo aad ku soo kacdo inaad qof inaad noloshiisa baabiiso taas ugu daran dadka arsaaqad kale way waayeen maanta aniga waxa weeyaan waxa la igu soo weeraray waa waa karaamadii weeyaan waa sharafteedii maraysaa طبعاً شربا مسج لي يسود رجري ونقل جري إن لي هنجبو لكن I didn't know how cool and hateful fanaanadan waxa loo soo diri jiray message oo warning ah waa la siin jiray Soomaalidana waxa waa anaka qofka hada warning na siiyo waxa u maleynaa wanaag inuu noo soo binayo ma fahmi laakiin warning-kaas wuxuu ku tusaysaa inuu aniga waxaan dib mar raba inaan ku geysto inuu iska ilaali waxba soo riixoyo iska ilaali fahamta qofka waxa la rabaa marka warning-ka koowaad markuu arko tan labaad markuu arko tan saddexaad waxa la rabaa handbrake inuu taagto oo digtoono hore ka galano marka fanaanadeena ayadana waxa hurdadii la tagtay bal si dhageysana markaada hada wiilkan waaba wiil boy isaga nin raga wax lama yeelo laakiin ani isaga waa nin raga Soomaali ma anahay only mar walba dhibaatada dhacdaaba dumarku unbay ku dhacdaa nin raga sawirkiisa la soo dhigo banaag dhunkanay ama naag la jooga iyagoo naag kusanayaba wax noqonin laakiin waxa dhaawac gaaran u waa dumarka weeyaan you have no idea waxa naga dhaxeeya ma ogid waxaan isku nahay ma garan kartiin wixii anaga relationship-kayga iyo noloshayda waxay tahay ma garan kartaa teleefankayga markaad surgery ku samaysay aad qashay intaasoo kaliya aad heshay intii baanad mooday inaad wax igu yeeli karto ani hadda waxaan ku ooyay waxa weeyaan ilmahayga sharcigiisii oo yaacay ma aragtay maanta Snapchat dhexyaala kama oohinaya ani waxa igu dhacay this is what I did is aniga weeyaan aniga waxaan cuqdad ka qaba maaha because aniga iyo wiilkan relationship-kayga iyo wixii naga dhaxeeyo ma garan kartid kali haatay
waxaan beerka i qarxiyo ubadkayga isoo wacayo waxaas daawanaya iyo sharciga sida u jeedin hadda dadkeena Soomaalida anigu mid ah oran lahaa marka qof walba niyo telefoon markuu soo gadanayo waraaqada raacsan waraaqadaas qof akhrisa ma lahan sida aan u maleynayo maxaa yeelay Soomaalideena wixii waa furnaa boxiga isla markiiba waa isticmaalaa waraaqadaha iyo waxa dib loo raaco waxa ku qoran telefoonkan fadlan ha u isticmaaleen sida gurigaada oo kale maxaa yeelay sawiro qolkaada oo kale waa aragta marka kaliya aad tahay waxa rabtid asoobin kartaa waa boodi kartaa waa iska siibi kartaa xaafahanta marka adig maxay la tahay laba rag baatiin adigu ka jawaab waxyaalo badan oo ku soobin kartaa laakiin social media dad waxa jira u isticmaalo sida qolkooda oo kale wax walba ku kayd gareeyaan sawir aan loo baahnayn oo muhiim ah oo qofka soo ever inuu iska qaada wuxuu ku leeyahay 3 sano kadib isdaawana sida uu aadaale dibkaan oo kale imaanaa marka fadlan ha u isticmaalina telefoonadiina sida gurigiina oo kale hadii kale waxaan igu dhacay waa ogtiin maalin walba cawaadkii qeylada soo baxo because waxa yeelay waxa ka tilaabsatiin sharciga ka tilaabsatiin qofka sharciga oo ka tilaabsada problem weyn iyo waxyaalo badan la kulmay marka ha u isticmaalin mobilada sida qolkaada oo kale qaano waxaan ku geysanay maxaan ku dhahdaa in ka galay ma garanayo xumaatada inta la eegin haybka inta la eegid qabtidna aanu garan maayo hadda doonaysid inaad ani ibaabiiso waxay ahayd inaad ani kaliya ibaabiiso de waxaad iga haysid la ordaysa aad ma aragtay aad ani kaliya la timaad inaad dad kale maxaan ku dhahdaa idur saartana ma ahayn oo qof kale ila raadisid inaad isaga inay la baabiiso ubadkaygana inaad ma aragtay maxaan ku dhahdaa id raadiso ma ahayn alxamdulillah inaanan caruurtayda ku haynin halkaasi sawiradooda iyo wax barayfada ubadkaygu leeyihiin inaanu snaapka ku jirin taas waa alxamdulillah social security aad meesha la soo dhigay iyo dareef leesankaasi shalay baan screenshot ka qaadan caruurtayda u diray maantana waad arkaysaa wax walba waxa iga daran aniga iga daran maxaan ku dhahdaa waxa ani igu dhacay iga daran sharciga ilmahayga umada la sheergareeyay sida aad u jeedin waxay ka qeylinaysaa sharciga ciyaalkeeda ee waxay u soo gashatay sawir ahaan xagga Snapchat-ka sidaas ay Snapchat-ka marka loogu jabsaday loogu soo degsaday xagga sharciga dib ma lahan horta sidiisa baqbeel oo aadi kara ma lahan wax rajiis gareysan waaye si walba u isticmaal waa la soo heli karaa laakiin waxa ka muhiimsan qofka sawirada oo meesha oo gishtay oo laga xaday taas ka muhiimsan sharciga aniga wax muhiim milahan because as long as qofka oo joogo wadan oo saafi oo clean oo joogo dib loo heli karaa dib ma lahan laakiin qofka sharaftiisa iyo wixiisa si loo helo xoogaa waqti uu qaadanay ayadana sida noo sheegay dhashay awlaad dhashay ma sha Allah dad way la dhashteen dad way dhashay oo arintaasna waa arin xanuun waay aniga mideeda kale waxa dhiilahay dadkan xumaatada waxa wareejinay hal cosi aan u dir lahay barada xumaatay iyo gabdhag aadi aan kula dhalan inta wareejin leh anaka waxa jecelnahay kuwa adigu kula dhashta mis hooyada ina saashadan noo soo saartay naga day kuwa kala daa xumaan wareejinaysid hooyada iyo walasha ka soo qaad video sawir soo dhaxdhig saanaka indhaha ugu daawana markaas aad dareemay xanuunkii waxa haddana waxaan leeyahay fadlan channel-ka daa ku cusub tahay like sub gambaleelka taabo video kasta qeyladiisa buuqiisa rafaadkiisa rabshadiisa saa u maqashid haddana waxa ku leeyahay stay safe stay clean nabadgelyo